waxay ahaayeen laba gabdhood oo mataano ah duhurnimadii maantana iyaga oo meed ku dhashay isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir. mid ka mid ah labada cunug waxaa maqnaa qaybta sare ee jirkiisa sida gacmaha iyo madaxa, waana mid ka mid ah amuuraha Rabbi ugu talagalay in adoomadiisa ay ku wana qaataan. kan gudaha isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir gaar ahaan qaybta salada waxaan halkan ku sugan dhaqaatiir badan sida darafkan halkan waxa yaala ilmihi yara ay dhashay hooyada waana laba gabdhood oo mid ka mid ah ilmihi maqan tahay waana mataano sida darafkan waana mid ka mid ah qadarta Rabbi oo adanihiisu uu ku imtixaano sida ay dhaqaatiirtu sheegeen marar badan ay kiisaska macaan isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir lagu arkay. inkastoo caruurtan hadda ay dhinteen haddana hooyada dhashay waa ay socsantaa oo inoo suuragelinaysa in wax badan aan caafimaadkeedii iyadaan ogaano. labada cunug ayaa ku dhashay iyagoo aan gaarin waqtigooda. hooyada dhashay ilmahan ayaa qaliin lagu sameeyey sida ay ii sheegtay Dr. Maryan Cumar Salaad oo aan kula kulmay isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir. saakay subaxii markii ahayd adiga kulay barqadii camal ee gabadhan inoo imaatay kumbuyuutar ay wadatay caloosheeda waxay ahayd daa'idii u weyneed wax oo bulhadramna soo dhaw kumbuyuutar ku soo sheegay oo ah maxay ahayd biyaha canug oo badan kadib badanaa markay ilmaha soo kale yihiin waxay leeyihiin waxyaabo qayr caadi ah kadib waxaan geynay qaybta oo dhalinta markii oo biyihii laga bixiyay kadib oo artificial loogu sameeyay biyo badan markay ka baxeen waxay bilowday dhiig bax zaa'id ah bilowday dhiigii markii oo zaa'id oo noqday dhiiga u talabnay cid oo u sheegnay inay qaliin tahay qaybta salada u soo gudbinay markii duhradii ay gaarkaas ay ahayd kadib qaliinka marka uu sameeyay canuga kuwaad markaan soo bixinay waxaan aragnay canuga kale lugihiisina xoogaa ay caadi ay ahayd markaan soo wada bixinana waxaan la kulanay inuu uusan lahayn madax marka kulay waa isku mucjiso ilaahay intaas wixii kale waxa way mucjiso ilaahay waa ilaahay inuu ku cibro lagu qaato oo wax ilaa xaqiisa waxa laga qaban karo ma jiraan ilmahan bilihii ma dhameysteen maya dhameys ma aha barta ma wadi karin ilaa because biyaha xanka oo zaa'id ugu tan badanay. Dr. Maxamed Cusmaan oo ah madaxa suuxinta bukaanada ka hor inta aan la qalin ayaa la kulmay maamada ilmahan dhashay. wallahi muuqaalkeeda kulay aad u liitay waayo waxa aad u liitay HP-geeda oo hooseeyay oo tilmaami kara ilaa 3 ilaa 4 HP-geeda marka waxay ahayd ayada complication-keeda lagu keenay emergency waana caseska runtii marwalba nagu soo laabto inta badan yimaado placenta operation ay waa ibidii ay soo hormartay oo dhiig bax badan ay sameynaysay degdega asaas ugu keenay aan kusoo diyaarinay walilah alxamdu ilaahay waa noo fududeeyay hadee waa hade ilmahan ay dhashay oo gabdhahan oo ilmo mucjiso ah oo ilaahay hade maqaadiirtiisa oo Dr. Maryan Cumar Salaad oo fulisay qaliinka hooyada lagu sameeyay ayaan weydiiyay xaaladda hooyada caruurtan dhashay sida ay tahay iyo haddii ay jirto dhacdo la mid ah tan oo kale oo horey loogu arkay gudaha isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir. wallaahi wax gooniyaas lagu mala dhihi karo waa kulay amar ilaahay waaye waxyaabo kalena way ay xawli karaan laakiin hadda kulay waxa amar ilaahay oo sheeg xaaladda hooyada hadda way fiican tahay alxamdulillah nabadeeda waaye. كور مركب المهنة عن كلا عري ملا أركي استلكن كاركتين وسيدان كلا كيس كانوا بيدا كيس كانوا كلا عمل وأركني عادي هاني ولا شيء مدة هذه قالوا بلاد كهر أركني كانوا كلوا هاي ويسكن متانو هاي ومتانا ميت كهري ميت كدم بسانو كلا هاي أي المهنة متانا هذا ولو قبض مياه لا بقبض واحد hooyo Farxiye Cali oo ah maamada dhashay caruurtan ayaa muddo ku noolay deegaanka Doondheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayd xaafadda Tawfiiq degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. xanuuno badan iyo culays saa'id ah oo soo wajahay hooyo Farxiye Cali darteed ayaa la keenay isbitaalka Banaadir oo ugu dambeyntiina ku dhashay laba cunug oo meyd ah mid ka mid ahna uu maqnaa qaybta sare ee jirkiisa. Aways Maxamuud Jilcow Royal TV مقدشو